muuqaal kooban oo baraha bulshada si weyn loo wareejiyay gaar ahaan baraha bulshada ee wadanka India ayaa saacadihii la soo dhaafay waxa uu muujinayaa xaflad aroos oo ka dhacday wadankaasi Hindiya. xafladaasi oo markali ah isku bedeshay gacan ka hadal iyo buuq xad dhaaf ah kadib markii ah lagu warhelay aruusadii loo qabanayay xafladda arooska oo dhirbaaxo labada dhaban ku muudsatay siigeedii aruuska ahaa. muddo dhowr ilbiriqsi ahna kadib mar kale dhirbaaxo kale wajiga kaga dhufatay aruuskeedii taasoo dhalisay buuq iyo firkanax. dadkiina ay xafladii arooska markali ah isaga dareereen. waxay ahayd xaflad aroos oo dad badan isugu yimaadeen kana dhacaysay deegaanka Hamirpur ee gobolka Uttar Pradesh ee dalka Hindiya. xafladaasi ayaa noqotay goob farxadii ka jirtay markii ay isku bedeshay aamusnaan iyo la yaab kadib markii sabab aan la aqoonsan ay aruusadii laba dhirbaaxo u diran doori ah dhabanada ku casaysay siigeedii aruuska ahaa ee goobta xafladda kula sugnaa. mar uu isku dayay in uu qoorta u sudho ubaxyo ful ah oo muujinaya farxadda dabaaldega arooska. aruusadda ayaa dhirbaaxooyinkan miciinsatay iyadoo oo markaasi aruusku uu aruusadiisa qoorta u gelinayay ful ubaxyo ah oo qurux badan. waxaana dhirbaaxooyinka gabadhu haleelayaan marka uu qoorta u gelinayo aruusadiisa ubaxyo ay ugu dabaaldegayeen xafladda arooskoodan oo ay dad badani ka soo qayb galeen. martida xafladda arooska oo daawanayay aadna ula dhacsanaa sida aruusku xaaskiisa qoorta ugu gelinayo ubaxyada ay fajicisay iyo la yaab ku noqotay markii ay arkeen aruusadda oo dhirbaaxo xoogan dhabanka ku fujisay saygeeda aruuska ahaa. dhowr ilbiriqsi kadibna mar kale u raacisay dhirbaaxo labaad oo darandoori ah oo ay ku hubsatay dhabanka saygeeda. dadkii marti sharafta ahaa ee faraxsanaa ee sacabka tumayay ayaa waxaa ka soo hadhay aamusnaan iyo naxdin iyo anfiriir iyaga oo aan garan sababta keentay in xafladii aroosku markii ay isku bedesho goob gacan ka hadal iyo dagaal ah. inkasta oo aanu ninku isagu xaaskiisa wax gacan qaad ah ula kicin oo aanu gacanta u qaadin balse uu ahaa mid aamusan gacantana dhabanka saaray. waxa uu muuqday malaha mid xanuunsaday oo dareemay xanuunka ay dhirbaaxadaasi lahayd. ciidamada ammaanka ee goobta soo gaadhay ee dalka India ayaa waxay warbaahinta u sheegeen in aanay aqoonsan sababta ay arrintan u dhacday. xafladii arooskuna halkaas ku joogsatay. dadkii marti sharafta ahna ay goobta isaga dareereen markii ay arkeen xaaska ninkan oo gacan qaad u qaaday ninkeeda isla markiibana xafladda ka baxday. muuqaal kooban oo muujinaya dhirbaaxooyinka aruusadda la dhacaysa saygeeda arooska ah ayaa waxa ay dadka Hindida ahi aad isugu dhaafsadeen baraha bulshada iyadoo warbaahinta duniduna soo qaadatay dhacdadaasi la yaab kale ee ka dhacday gobolka Uttar Pradesh gaar ahaan deegaanka lagu magacaabo Hamirpur.